Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Liverpool oo guul weyn ka gaartay kooxda Aston Villa, Arsenal oo guul soo laabasho leh ka gaartay kooxda West Ham United, Newcastle oo fadhida kaalinta labaad ee horyaalka English Premier League, Liverpool oo dhameystirtay adeega xidiga PSV Eindhoven ee Gakpo. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhesina shargaraysi barnaamijkana asxaab badan u gaaro. Liverpool ayaa guul weyn ka gaartay kooxda Aston Villa. Kooxda Liverpool ayaa guul ku bilaabatay dib u bilaabashada horyaalka Premier League kadib markii ay garaaceen kooxda Aston Villa. Liverpool ayaa si dardar leh ku bilaabatay kulanka iyagoo Villa ku qaaday weerar aan kala joogsi lahayn oo waqti hore ah. Daqiiqadii shanaad ayaa Liverpool dhalisay gool koowaad waxaana u dhaliyay xidiga Mohamed Salah kaasi oo baas cajiib ah ka helay xidiga Andy Robertson kaasi oo hoggaanka u dhiibay kooxda Liverpool. Reds ayaa sii waday cadaadiska ay ku haysay kooxda Aston Villa xilli Nunes fursado badan iska khasaariyay. Aston Villa ayaa mararka qaar helaysay fursado ay goolal ku dhalin kartay iyadoo mararka qaar ay sigayeen shabaqa kooxda Liverpool. Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 3-1 oo Liverpool ay ku badisay. Arsenal ayaa dhankeeda guul soo laabasho leh ka gaartay kooxda West Ham United. Arsenal ayaa sii dheeraystay hoggaanka horyaalka English Premier League kadib markii ay 3-1 ku garaaceen kooxda West Ham United oo martii ugu hayda garoonka Emirates Stadium. Guusha Arsenal ayaa ka saaciday inay 7 dhibcood ay hoggaanka uga hayaan kooxda kaalinta labaad ee Newcastle halka ay 8 dhibcood ay ka sareeyaan Manchester City oo Arbacada ciyaaraysa. Ciyaarta ayaa ahayd mid xiiso badan oo labada kooxood ay soo bandhigeen kubad aad u adag ee xamaasadeeda lahayd. Arsenal ayaa ciyaarta ku bilaabatay inay shabaqa soo taabtaan daqiiqadii afraad laakiin goolkii uu dhaliyay Bukayo Saka waa la diiday maadaama uu offside ahaa. Gunners ayaa weerar kale qaaday halka Ben Arfa uu isku dayay inuu shabaqa meel fog ka toogto laakiin fursadii ugu fiicneed waxay timid markii William Saliba xirada ganaaxa ku dhex laaday Bowen taasoo keentay in garsooraha uu rigooro u dhigo kooxda West Ham United. Waxaan rigoorada u soo istaagay Ben Rama oo shabaqa dhex dhigay isla markaana hoggaanka u dhiibay kooxdiisa West Ham United. Dhamaadkii qaybtii hore Arsenal waxaa loo dhigay rigooro markii garsooraha uu mooday in Graswell uu gacmaha ku celiyay darbo ka timid Odegaard laakiin VAR ayaa dib u eegis sameeyay waxaana ku celiskii la daawaday la arkay in Graswell uu madaxa ku celiyay kubadda inkastoo uu gacanta kor u qaaday. Sidaas daraadeed rigooraha waa laga laabtay taasoo careysiisay jamaahiirta kooxda Arsenal. Dhanka kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka English Premier League waxaana wada ciyaaray kooxaha kale ah kooxda Brentford iyo Tottenham. Kulankaasi waxaa lagu kala baxay 2-2 oo labada kooxood ay wada galeen. Crystal Palace iyo kooxda Fulham ayaa 3-0 ku badisay. Everton iyo kooxda Wolves ayaa 3-1 ku badisay. Leicester City iyo Newcastle ayaa 3-0 ku badisay. Intaas waxay ahaayeen kulamadii laga ciyaaray horyaalka English Premier League. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhesina shargaray si barnaamijkeena asxaab badan u gaaro. Mahadsanidina.